dadka sharafta badan leh haweeniya dhalinyarada ee halkan fadhiya maanta xafladan loo qabtay waxaan leeyahay dadkiina ma tihidin dad cusub oo xisbiga kulmiye maanta ku soo biiray oo qariib ah waxaad tihiin dadkii midnimada u taagay xisbiga kulmiye ee aasaaskiisa lahaa markaas safar iyo gaaban baa ku muqeeyeen safarkii ayaa ku timaaday runta ee ku soo dhawaada doorkii iyo kaalintii iyo booskii aad kulmiye kaga haydeena laydinkama buuxina wuu idin bannaan yahay dabeedna qabsada booskii iyo kordhaad aad baan ugu faraxsanahay aad baa ula soo kafaxdeen kulmiye halka badan baa soo gasheen codkiina iyo cumudiina iyo caqligiina iyo taageeradiina siyaasadeedba waa siiseen laga soo bilaabo maalintii aasaaskii ururada sanadkii 2002 markii la aasaasayay ururada waxaa guddig u ahaa inuu xisbiga kulmiye soo baxo waxaa weeyaan idinka ayaa hayda runtii marka la hadlo tii ku xigtay ee doorashadii golaha deegaanka ee u horreeyeyna idinka ayaa garabay gaashaan ku horreeyay la ahaa tii ku xigtay ee doorashadii 2003 iyo madaxtooyadana idinka ayaa ahaa qayb ka ahaa codkiina iyo cumudiinaba wada siiyey taasoo xisbiguna idin og yahay waxaa ku xigay tii doorashadii 2005 ee baarlamaanka sida oo codkiina u siiseen foodkaa bixiseen iyo taageeradiinii iyo cumudiin iyo maalkiin iyo caqligiina la hurtayna taasna waa intii taloosanaa waxaa kale oo iyaduna ahayd doorashadii 2010 ee xukuumadda hadda talaysa xisbiga kulmiye ee madaxweyne Silaay musharaxu ahaana waxaa qayb ka ahaydeen oo kaalin ku ahaydeen soo saaristii iyo codkaa siiseen xisbiga kulmiye Silaayna lagu soo saaray runtii ku khasaaray codkii guusha maanta uu kulmiye gaaray qaranku gaaray waxqabadka xukuumaddu qabatay intiiba waa guusha weynleedihiin maantana waxa aan jecelahay oo aan ku faraxsannahay oo kulmiyada ku faraxsan yahay inaad doorkiina qaadan doontaan kaalintiina qaadan doontaan halgankiina qaadan doontaan xisbiguna idin baahay waa farxaddaa idinku soo weynaya intaa markaan ka baxo runaantii fursaddan baa waxaan jeclahay inaan iyaga faa'iidaysto runaantii arrintaas waxa weeyaan markii aan doorashadii golayaasha deegaanka ee dhaweyn ee xaqsoor arrinta xaqsoor runaantii taageerayaasha xisbiga kulmiye ka fadhiyaan badankooda waxa ay taageereen xaqsoor uu dhacay in badanoo ka mid waxaa guddi ugu soo noqday xisbiga kulmiye halkii loo baahnaa inuu kulmiye aad qabsataan ama dadkan iyo bulshada reer axmed dhagax ay doorkooda qaataan mar labaad waxoogaa tashuusha yara dhacay maanta waa arrimaha ugu horreeyey ee xisbiga kulmiye iyo bulshada reer axmed dhagax la doonayay in badanoo ka midi in lagu kala geeyo oo ay dib ugu soo noqon oo gacan shisheeyo oo dibadda ka ah kulmiye xukuumaddiisba ay ku jirtay runaantii xisbiga kulmiye wuu jeclaa xukuumaddu way jeclay heshiisyadii xaqsoor lala gelayay oo la jeclaa cabdicasiis maxamed samaale ayaa ka og ahaa guddiga xaajoodka kulmiye iyo xukuumadda iyo xaqsoor si wanaagsan baa loo weli arrimo badan oo khaldanay khalad badan oo xaqsoor lahaa waa jiray bulshada xaqsoor miday xukuumaddu lahay waa jirtay laakiin taa inta ka weyn waxay ahayd gacan badan oo shisheeye oo aan xukuumadda iyo kulmiye iyo xaqsoor iyo mujtamaca reer axmed dhagax midna ahayn ayaa ku jiray oo kala geynayay heshiiskii ay galeen kulmiye iyo xaqsoor
يتعايد وقبل حسبك بسبب هي حصل هالشيء ورد عايد ورجعي وحوها قدام الكوان يأيد الكوان بحلسي حسب يقومين حسبنا واحد بسبب هي حصل كسر درس قدومية مسبح عدوها كنت موصاي وحاول بيها سيدي غير حقصر وغير كبيرها وإن أيو وحالله يا روحا أي دوران يشيز روحا أي دوران يترى أي دوران وين وسيو أنا يا السنة أنا كدومية ويا روحا متمني أكسرها شرب القدر وحكمل الدور اللي القدر دور الشرب لو قبليه تنساني وقرر أفريقيا ليبر باس واللي أجسامك الجمهورية يسوي عندهم تك هالشيء حقصر وإلا دميو وحلا يا روح حقصر مقرعيات وإلا السيو هلكا واحد فرديا نكر إلى حسن جفاني وقدوميها أولوكي الرئيس وأولوكي أفراد الدعاي كسر هي حقصر تراني الأوقاتين ولينا فوق عيد الشرب هالشيء دي رجع الزجر يكي حقصر رجع اسمه يقول حقصر ما صدق حكاية كسر هي كبرنا هذا واحد من كتاب منشر يسير الأولى برشلونة هي حمدنا حقصر وأنا فوق الدرين مكان حقصر كلام إلا الشعراء اللي منشرتها وهكذا إذا شيء خكّا مانتا هلكا وطن كبيرة الرجال أولتينا كبرنا إن كبرنا والله إني أتاكر سريع وأولوكي يحضركي دماغ عندك يقرب السنة يحس بالكبيرة وهذا مدن شرف مدن شعائر مدن حرية حقوق مدن يدور الشعراء يدور الشعر هيتي كسوقا عد هيتي وضع كلمين وضع من أرض وهالدورة وهالية وكلمية كتفسر كلمية السيرايو يتذكر الوحي كل شيء تشرين قريقة آمينة عبد الله كريم بالمكر بيتشرين markii xaqsoo markii doorashada baarlamaanka uu ku biiray iyadoo la jecel yahay ilaa maanta la jecel yahay kuma khaldanayn inuu udur ku biiro markuu wasiirka lagu caddeeyay wax weyn buu qabtay oo uu qabtay wasaaradda caafimaadka ka qabtay qaranka Soomaaliland dagaalkii uu ku soo jeediyay uu ka qabtay maantana sharaf baa loo hayaa dawladda iyo xukunka iyo kulmiyada نكلا يراهنو عبد القادر الجندي أخويها ويويا وحويت مسابقة وروح كسر وكان البرلمان السوداني وفد وقوم ضد الواقع تبرر ونقلنا من الحوية يوحورها فرصة بدل مهيئ أو مهيئ بالمرة ما تنوي قمة وأنا متشعرها وأنا متشعرها وهذا مسألة معدي وأساسياشي حزب القومية وأنيك كينيا المركة الكلمية تشوفه وسيرايو أحمد سيرايو حسين براد الكتاب كيو دينه وشرعي على شرعي غالي سيشرف لا أيوه يا الله عندي ما يوحي مردود بيشي مصدق علم وصاحب لا أعطيه هاي إيش بيه هاي سكين كمر لهم بحي وحاله الكريم صور كامل ما يفسد على إسكالي أبي كا مكان وحاله ولا شيء من التنور والنظي أسرع بار النظي والناس كوهم تسياسي مبدأ يا الله ما كيوت إن الحمار يخرج هو كتير من الشيء
waxaan ila cadeynayaa arrimo la yidhaahdo ragga siyaasiyiinta ah ee kulmiye ka baxaya wadani galay kulmiye wuu deeriyey albaabada laga xidhay waa deeriyey taasaan doonayaa inaan ii deeriyo waxaan meelkaa uga jeeda muuse biixi u yeedha aniga wili waxaan doonayaa xasano inaan wada hadallo xuseen axmed cabdi kaalama raac waan raacay saddexdayo muuse iyo xuseen iyo aniga oo qulan ayaa baabkoos ka xidhay muuse waa xuseen qulan waxaynu isku hay arday waxaynu isku nahay waxaynu isku ahay isku askar baynu nahay mar baynu ruushka wada tagnay waynu ka nimi esran baynu nahay saaxiib baynu nahay waxbaad iga tirsanaysaa maya maantana waxaan jecelahay inaad na hogaamiso talaada weliba aan yeelo may dhicin nasiib darro xuseen halkaasuu maray ma khaldano oo qofku aragtidiisa uu yeelan karaa laakiin waxaan anigu ka qoomoonayaa maanta raggii hormoodkayga ahay haldoorkaygii halka ay ku jabeen ee ku bahdilmeen qoomamaday haysa waa taase kulmiye baa kana haysa abtigay cabdiqaadir xaji ismaaciilba waxaa la yidhi waxaa tahay guddoomiyaha kumeelgaarka ilaahay baan ku baariye bal-eedu oo guddoomiyaha kumeelgaarka dastuurka xisbiga wadani waxa ugu qoran laba qodba wey guddoomiyaha kumeelgaarkaahi waxa uu ka mid noqonayaa xubnaha hoggaanka ee guddiga waa kow waxa ka qodobka le waxa weeye waxa uu xilka la wareegi doonaa beriga uu cabdiraxmaan cili madaxweyne noqdo ee xilkan madaxweynimo loo dhaariyo markaasuu xilka la wareegi doonaa waxaan wax kaloo ku qoran ma jiro hogaamiyaha xisbi baa la sameeyey waa xirsi 7 awoodood oo aan jirin oo aan damgarasa aan cabqadlahayn baa la siiyey waxaana ka muuqanaysa inuu iska yahay waxaan la yidhaahdo soomaali kaba waraabogtaan waxaan ka xumahay inuu cabdiqaadir jirte iyo cabdi hayre ay waraabogtaan maanta ka noqdaan meel aanay sharaftoodgeyn xirsi baa faanay waxa uu faanu yidhi waddooyinkan furay darajooyinkana waxeeyey tan iyo tanana qabtay intuba waxay ku jireen dastuurka siyaasadda xisbiga kulmiye ninkii qorayuha xuseen axmed cabdi oo garab taagnaa xirsi hadday cidi ku faanayso xuseen axmed cabdi baa ku faani lahaa oo aasaasayaashii xisbiga ahaa oo sameeyey siyaasadda iyo barnaamijka xisbiga uu ku faanaya xirsi halka lagu yeestay ee lagu baagdilayaaba aniga weli qoranaya haysa ee wixii taaba xiseen baa ku jira waxaan halkii ku soo gabagabaya ninbaa waxaa la yidhi ninbaa la dilay dabeedna ina saaxiibihiinba ka gebi waaya habeenkii korka islaantiisu toosiya u xidhana nayaahe hebel muxuu ku dhintay ee mooya naga seexo naa muxuu hebel ku dhintay ee mooya naga seexo deeda marka dambuu naa bixiso markaa maanta waxaan leeyahay raggaygiiba waxay ku dhinteen bixiso misade maamaani faarax u baynu dhahnaayo ee uu faarax numiinalaati jir mooyaane xina jir ma leh dee mataasaynu dhahnaa meelkaa odhanayo waa bixisaba leh intaa markay kuga baxo xisbiga kulmiye wuu idin jecel yahay waa dadkiisi baa tihin kaalintiin baa idin bannaan farxad weyn bay idin tahay doorkiin baa qaadanaysaan dalladaha halkaa jiraana weelkii a wax laydukula qaban lahaa ayaa toroteen idinka iyo dalladaha kale iyo social groupiska kale ee dadka jira waan idin soo dhaweynaynaa waan isku faraxsannahay anigana waxay ii tahay farxad gaara iyo hiil gaara ayay ii tahay mar haddaan ahay xogya guda xisbiga kulmiye oo ka soo jeeda degaankaa ka soo jeeda halkayninkaasaan kusoo gabagabeynayaa iminkana waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha xisbiga mudane muuse cabdi